بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب شرفت الله مال كستا الدنيا كجوتها وعنده سلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل يوم وعلى السلام أصحاب شرفت الله. ما أنتوا قال ربنا وحياله حنون بدن سيدا عرورته قال دبعته اللو في سنة أو أد حنون وحياله قفك بين آدم كا أو ضمير له وحياله أكيد سكرهم ما معنا وصابته فرحمة عرورته لفرحمنا وارتي وعيال 3 جر 4 سنة جر 2 سنة جر waxaasoo kale inta qof bini aadan uma adkeysan kara waxa u dhaweeyay mar dhaxdaas ka dhacday Kenya Garissa marka walaalayaal waxaasoo kale inta wax fiican ma aha qof kasto damiir leh bini aadan ah looma baahna waxaasoo kale inoo sameeyo qofka inuu maandoori qofkaas qof fiyo kuma tilmaami karno waa qof maandoori isticmaalay waxa laga yaabaa waxyaalo badan oo qof oo hadan caafimaadkiisa tamaan ah oo waxa sameynay sida dhalinyaro oo kale inuu waxa sameeyo waxa la sheegaa marka barkeed waa yeelo wax dhaleen oo waxa soo kale caruurta waa waxa soo kale ma aha qof weyn ma aha qofkaas oo kale hadoo heerkaas maray waxa loo baahan yahay xadgudubkaas waa weyn oo sameey lahay inuu 2 salaad soo dugto oo soomo Ilaahay subhanahu wa ta'ala wadijina laakiin waxaan u maleynaa waxa sheedaan inuu yihiin ama dad inoo ka dambeeyo oo qofka sheedaan ku shaqeysana waa caruur qof damcay waxaan ku tilmaami karaa ma aha qof kasta wuu gubana marka waalidiinta waxa ugu diga waalidiinta walaalayaal meel kasta joogtiin caruurta ku hubsada dugsi hada u dilaysiin dugsiga lagu salimo macna waqti la soo deeyay macna meeqa saac amal oo imaana waqtigaas 4 saac ama 5 saac imaaw waqti la soo deeyna quraacdo kala tag celi qadado kale sidoo kale markii la soo fasaxayo kale maqalkii oo kale u taga ciyaalka yaa meel loo dirin ciyaalka kaligood ma aha hatta gabdhaha dhalinyarada hatta yaa meel loo dirin kaligood waayahan waxyaalo xumo oo dhibaato ah soo batay waa ogtiin marka lagu soo salimo waalidiinta yaa la wahsanan caruurtiin ka fikira naftadooda ka fikira wax dhibaatadaas qof kasto bini aadan oo meel kasto muslim ah way gaaraysaa muslim iyo gaalbo wax diinteena islaamka fariisa ma aha had gudubkaas oo kale caruurta loo geysana marka waxa intaas in ka badan aan soo sheegay waxyaalaha batay waxa kamid ah sida waxa kale gabdhaha oo jacaylka loo abuuraa maalmaha waxa soo batay 2 qofooda is jeclaanayso haday gabadha waa gabadh walaasha jacayl waa gal kara adoo gal kara la isku ma haasta 2 qofood waa is jeclaan kara laakiin inuu sawiro la isku diro sawirka qofka kala jecel haday sawirku soo dirsid oo sawirkeedo kale ama baraha bulshada isticmaasho kale waxa soo kale mamnuuc waaye diinteena suuban faraysa marka qofka bini aadanku waxa loo baahan yahay gabadh walaasha haday ku amintay dhalinyaro walaalaha walaasha haday ku amintay adin waxa loo baahan yahay ixtiraam inuu is ixtiraantiin hada qofkaas dan kale walaalaha miya dan ka leeyahay la dhigi kara la qof walaasha waxa adag u ogoleen naftadaada u ogoleen walaasha u ogoleen caruurtaada u ogoleen aw qaad maalmahan waa aragtay jacaylka gabadha marka lagu abuuro kala baraha bulshada la dhigo waxa soo kale wax xun waa ma fiican qofka dad kasto oo dhibaatadaas iyo dhalinyar kasto ku jirto wiil iyo gabarbo waxaan ka waanayaa inuu ka waanto waa markaas oo kale wax wanaagsan ma aha marka intaas aan soo gabagabeeyo walaalayaal waxaan rajaynayaa subscribe inuu noo saartaan noo la gareysaan share na dhaadaan waa walaalkiina waaye marka hormar inkaan gaarsiin karo marka inkan waxa aan rajaynayaa inuu subscribe-ka inkan lacag manigu ah anaga faa'iido noo yahay marka hormar iyo wanaag anagana wax kasto bulshada oo kale sida wax kasto wararka oo kale sida saano kala caruurta inoo hadalno wixii markaas cusub oo dhibaatada iyo waxa soo jiro kale marka insha Allah waxaan rajaynaa خير قول بس باش البراقة مركز السراج اللي يجن واقع حقيني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.